جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا من حنينا أو ركعنا من حنينا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي. waxaan su'aasha ugu horeysa siinayaa Sheekh Jaamac Cabdisalaam. Sheekhana marka hore guurka iyo diinta islaamka waxay ka tiri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Guurka waxaan ogsoonahay waa sunnatul anbiya. Nabiyaasha Ilaahay soo diri jiray oo dhan hadigoodii iyo sunnadoodii weeye waana waxa bashariyadu in ay sii jirto oo sabab noqonaya. marka shariicadu waxa la yiraahdaa culimadu waxay yiraahdaan waa waajib qofku hadii laga baqayo inuu wax macsiya uu ku dhaco hadii kalena waa shay iska mutaqaana aad iyo aad faadil u ah oo wanaagsan oo hadigii nabiyaasha ah oo marna mubaax noqon kara marna mutaqaana iska jaa'iz noqon kara marba aad qofku xaaladda uu ku sugan yahay dhaqaalihiisa iyo duruufihiisa hadba sida ay yihiin nabiguna waxaan ogsoonahay sallallahu alayhi wasallam inuu yiri tazawwajul wadud alwalud fa inni mukathirun bikum al-umam gabdhaha u guursada mutaqaana jacaylka u guursada midda mutaqaana dhalmada badan tazawwajul waduda alwalud midda mutaqaana ragga jacayl oo dhalmada badan waliba wiilasha dhasha guursada oo ku dadaala fa inni mukathirun bikum al-umam ummadda tarbanideed ayaan ku fahamtamayaa idin kula fahamtami doona marka ummadda in la badiyo oo u jeeda maanta ummadihii waxa loo weerarayaa oo loo maartay markii ummadii ka yartahay oo dalkeeda cid leeyahay waxa weeye cadawgi waa damcaya jihaadku ku yaraanaya marka ummadda waxay ku qiimaysan tahay tirada ay dhan tahay iyo dhaqaalaha ay haystay aqoonteeda inahaas bay mataqaan ummad waliba ay hor ugu mari kartaa marka waa lafdhabar weeye in mataqaana dadka la badiyo wuxuuna kale oo yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar shabab man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj kulanka dhalinyaro hadii ninkii kari kara in uu mataqaana guursado oo dhaqaalihi wax ku dhisalaha hayahay falyatazawwaj ha guursado fa in lam yastadi' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wajaa ki aan kari karin marka in uu guursadaahi waa inuu soomka badiyaa waa inuu deyn qaataa oo iska lifaa oo lama dhihin deyntu waa wax fool xumo ah oo maaragtay qofka aakhiradiisa adduunkiisa u daran yaan la deyn qaadanay hal qofku hadadaar oo ha soomo oo wixii Ilaahay ha kaashado si wax ku soo saari laha marka guurku waa laf dhabarka bulshadana oran karna jazakallahu khairan Soomaalida dhaqan bay leedahay nabadoon kufridiid waagi hore qaabkee buu ahaa guurku bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah guurku wuxuu ahaa Soomaalidu misraf badan xaqiiqatu sidiisana samankii ka horeeyay dadku waa uga dhawaadiinta samankii ka dambeeyayna waxaad moodaa inay maaragtay hadda waayahan dambe un mooyaane adigu 10 sano la soo dhaafay mooyaane marka waxa weeye wuxuu ahaa guur wax looga taabo marka qofka uu damco inuu gabar doonto qaabka uu ahaa wuxuu ahaa reerku horta qorshu lahaa reerka Soomaaliyeed xoolahaasuna qorshe ayay ku socdeen iskama soconayn xoolo qofkuna wuxuu doona qoyska kamid ma sameyn kareen dad isku xidhan bay ahaayeen oo si isugu xidhan aad iyo aad u sarreysa marka waxa weeye warka wiilku barbaaro maanta waxa la oranayaa reerka midalan 5 wiil baa u kacday 5ta wiil ninka ugu horeeya loo guurinaya reerkaas waa la fiirinayaa maanta hebel waa loo guurin karaa baa la leeyahay marka waxa la sameynayaa wiilka ilma adeertiisa lagu darayaa waxa la leeyahay orod wariya naag soo arkood u fiiraad waliba waa la sii tilmaamaya waa loo sii farmuqaya waxa la leeyahay reer hebel gal soo la barigantaalayaa la diraya laba ilma adeertiisa ku xaysanaya kolkaas cidii loo diray u tagayaayo inaan markaa ishiisa buuxisa xigmadda xaggeeda iyo quruxda iyo dadnimada labadaba ka saameynaya ayuu mataqaanaa iyo markaa sahanka noocaas u galaya markaan xoogaa midaal soo qaadano gabar baa loo imanaya gabadh markay isha buuxiso la isiraayo qori xiro gabadhan way qurux badan tahay haddaba xigmadeedii baa la saameynaya marka waxa jirtay in la yiri way badan tahay laakiin mid baa ka soo qaadaya intii anigu aan wax ka maqlay marka wuxuu yiri 3 gabdhood baa loo yimi 3 gabdhood oo isku daa isku hooyo dhasho 3 dood isku xiga
bay u yimaadeen inamadii markaasaa la yidhi mid baana loo jeedaa ma garanaysaa markaasaa la yidhi gabdhow waxaad noo sheegtaan 3 waxyaabood noo sheega xujada laftigeeda ragga kama dhaxayso wiilka shuraaka laguma ay wiilka aqligiisa kala yimi xigmiyad wax la isla og yahayna weeye ma garanaysaa marka wuxuu yidhi geel xiradi iyo garow iidaanka iyo rag gogosh 3 gabdhow noo sheega hal xiraala la yiraahdo hal xiraalaha inantu haddaanay furin waaba laga tagaya xigmad ma leh baa leeyahay xigmad la dhalay mayso sida noocaas guurka loo dooni jiray su'aalaha ka jawaabta gabadhii weynayd baa su'aashi qaadatay waxay tiri degeel xiradiis waynu mataqaanaa keen ku jiro oo ceel cabo oo maxaan ku dhahaa geed sara daaqo oo waynu duuxaleeyahay oo ku darmado oo waka maxaan ku dhahaa rag gogoshina waa reer madow iyo busta la saara iyo adduun maaragtay sacabka la mariyo iyo guri dugsoon iyo waka garow idaankina waxa weeye waa gaari xashariso garoor hal lagu daro subagna laga dabageeyo garow idaankina waa dhaqankii Soomaalida haade kulkaas la yiri tii ku xigtay daadi ku xigtay adiguna ka waran markaasay tiri walaashay baan la qabaa marka waa laga dareeray markii laga dareeray tii uu yarayd waxay tiri war waa sidee maxaad u tagteen idinka naga miyaad waxna weydiisay saleelabadii ka waaweynaa wax garan waayay waa sidee markaasay dooraylay dadka aqliga uma qaybiyay qofba in buusiyay ayay ka jawaabanay su'aasha waa maqlaysay waxay tiri geel xiradi waa rag halahaado rag weeyay garow idaankina waa gaaja ku hayso markaas uu dhadhamaya hadaad gaaja ku hayso rag gogoshina guri dugsoon maahe waa godob hala aaday tiri iyada asiibtay gabadha yartiiba markaa la guursaday maxaa laga bixiyay gabadha magteedii iyo faras konton halaad iyo faras baa laga iibiyay magac leh yaa laga bixiyay gabadhaas la guursaday sidaas loo dhaqmi jiray dabadeedna gabadhaas markii guriga la yaa doonaya gaboole soo noqonay gabadha waan soo aragnay weynaha bilood odayaasha baa loo sheegaya odayga markaas uu oranaya hooyadeed waa tuma weynaha bilood hooyadeedna yaa ahayd weynaha bilood firkaasay ka soo jeeda halkaasay ka soo socota reer hebel bay ahayd inta markii la faguro ay kulli firkeento ayaa la oranaya daba waa la doonaya guga damba markaa guurtidii guuraysa reerkii baa loo tagayaa inantu ka dhalatay kulkaas geel loo waabay gorana loo sameeynaya halkaas xoolihii lagu baduugaya 15 bari ugu yaraan baa la fadhiyaya gabadhii baa meesha lagu bixinaya oo lagu nikaahaya wiilkii oo kaligiisa ayaa la oranaya reeriyaad iyadoo waxba la dhiibin wiilkii reerkii buu tagaya markaas reerkii wiilkii loo dhisaya bilka baad markuu gabadhii haysto oo gabadhii ogaado oo gabadhii reerkii ayaa markaa xoolihii la doonaya markii la soo raro inta wiilku arooska markaa xoolihii la keenaya bas inta qarashka waxa qaba reerka gabadhaas soo biidhay reerka ku timna kaftan bay ku baxaysaa maayar ku biximay aad baad u mahadsantahay soo nagaa urkii hore waan ku soo laabanaya nabadan sabdo waad maqlaysaa maxaad raacinaysaa halka bismillaah horta waxa ay gobolada dhaqanka waa kala gedisan qola geel iyo maxaa la qori ay isku guursadaan qorana waxa ay beeralay iyo xogaa xaggan koonfurtana anaga qori iyo geel ma naqaan marka waxa la isku guursadaa gabadha inay aadaab leedahay looma fiiriyo reer iyo wax ka dambeeyo looma fiiriyo cidda wiilka asaga ma raadsanaya ciddii aabihii iyo adeerkii iyo nabadoonkiisa u raadinaya cidda waa loo tegayaa waa loo gogolgelaya waxaa leeyahay gabadhaas aan rabnaa gabadha isla markii iyadoo waxba aan lagu xirin yaa meesha lagu bixinaya wax xeerno ahna waxa way anaga galeedeeni iyo saliideeni iyo wax anaga aan tabcano haysano wixii beeraha noogu soo baxan anaga gabadhii aan ku xirnaa saasoo anaga uu noogu soo galaa laakiin gobolada sida hadda saaxiibkay uu sheegay waa uu kala gedisan yahay guurka gobolo kale waxa la helayaa guurka ayaga nooc kale u yaqaan oo kan ana aqaan iyo kii saaxiibkay uu yaqaan maayna mid kale oo loo yaqaanay laakiin wuxuu ku soo ururaya marka guurka hore laga sheekeynayo guur sharafeed ilaa adigu waxa tiri beeraha iyo hantida la haysto ayaa ma aragtay sal ama gundigu ahaa nabadoonka saas oo kale xoolihii iyo fardihii iyo wixii la haystay mar walba wuxuu ku soo ururaya guur sharafeed sax mar kasta wuxuu ku soo ururaya guur sharafeed gabadha la sharfo ehelka la sharfo kadibna waxa ka dhalanaya isfahan iyo walaaltinimo oo gaar ah seedigii sadogii iyo dumaashidii meesha macnaa xididkana Soomaali caadi waxay u leeyihiin in xididka si fiican loo sharfo oo guurkaas una guur mudmiina oo dadka dhan ay ku walaaloobaan ay ka soo baxaan ilmo oo dadkoodii ehelkooda abtiyaashooda waxaan ognahay abtiyaash marka la abtiga ma taawat in la dhaho qofkaas hadii abtiyaashiis uu wax u geysto ama kelmad yar dhaho waxa la yaabaa in la dhaho ninkaas waa abtigiisa hawaara oo ixtiraam weyn oo guurka loo hayo insha Allah aad baad mahadsantahay kulley waxaan filayaa in gabayo iyo
wax badan laga tirin jiray guur sharafeedkaasi hayeeshe nabadoon guuleed xagaaga bismillah horta guurkan hadda joogiyo guurkii hore farqi baa kii hore haddaan ku hormarno guurkii hore wuxuu ahaa guur sharafeed buu ahaa markii la soo koobo gabadha markii la doonayo ama wiilka reerku dhalay ha loo doono ama odaga ha doono reer kale ha guursado ha doonte waa laga shoorayn jiray wariyaa hadee la kooraya gabar ka doonana reer hebel hadda dhowr qoys bay u kala baxaane reerkee ka doonana reer hebel haye yaa gabar u joogto ninka hebela ma hebel miya u joogta ha oo gabadha yaa reer aftu u ah waxa u ah reer hebel baa u ah ayeedeed yahay ayeedeedna waa reer hebel ilaa 7 fa ayaa xaqii la dabagalaya ama xaqii hooyo farcuha ka yimaado ama xaqii aabaha ka yimaado markii meel lagu soo hubsado gabadhii waa la doonayaa waa loo fariisanayaa qaali bay ku soo galaysaa reerkii fudayd ku soo gali mayso waa taas fudayd qofkii waxa li wixii fudayd kugu soo gala fudayd bay kaaga baxaan gabadhii qaali bay ku soo galaysaa geel iyo fardo iyo qori markii gabdhaha laga bixin jiray waa qaali waa soo gaaray annagu farasku wuxuu la mid ahaa iyo qoriga markii gabadha faras iyo qori xoolaha laga ugu soo daro baabuur jeemis oo qori suuhi saaran yahay ama shilka waa gabar maanta saas laga baxshay gabadha suu iyo waxa laga baxshay iyo shilka iyo ma aragtay baabuur jeemis oo saar guurku qaali buu ahaa masalan wiilku hanti ma lahayn aabihiisa gabadha u doonaya iyo tolkiis xoolahaas geelaas iyo faraska iyo qoriga laga bixiyo mar hadii la bixiyo gabadhu curato xoolahaas dib u soo noqon mahaya oo reerkii loogu soo celin mahayo wiilkii marka gabadhii waa ku mitidahaya aabihii yara damba ka bixin mahayo wuxuu leeyahay adiga geela qaybtaadi waa qabtaade bal wiilasha ka yar iyo hal la gaaro marka sidaas gabdhuhu qayma u lahaadeen guurkuna qayma u lahaa waa la isku xididin jiray sharaf buu lahaa gabayadii maxaad ka xasuusataa gabayadii in gabdhuhu qaali ahaadeen waxaan ka xasuustaa nin baa gabyado wuxuu yiri wiilkiisii uu dhaliilahayo wuxuu arkay naaga furfurahayo ma aragtay uu qaabkiisa u bogi waaday wuxuu yiri aaba toolmoonow todobkii kurus weyn oo turya aan deganayn 7 halaad iyo faraskii meydal taraah iyo tumbuq baan hooyada timire ka baxsho tabtii baa laygu aroos tabartaydi iyo xoogayga iyo tagaagdayda yaraatayna tagoogayga ku jirtaa sidii aad u tanaaday wax ma itartay reerkiina taana ma siiso hooyada tuma u geyso tu kala baa hadalkeeda adigu ma isla tacaashay tumasho iyo warwareeg baad waqtigaagi hadii ku lumisaday marka gabaygaas waa ka xasuustaa waxaan kale ka xasuustaa nin kale raggu markuu gaboobo daayahay wuxuu bixin jiray yarad saaido ayuu bixin jiray nin baa marka wuxuu yiri markii aan gaboobo hadii gabare ay diido geel iyo fardaan leedahay wasgada hayaad gabdhuhu saasay qaali u ahaadeen xoolaha looga bixin jiray furiinkooduna u yaraa laakiin nabadoon sabduub bay far uga taagan tahay meeshaas bismillah horta waxa waaye wax walba waxay leeyihiin nidaam guurka iyagoo saas ay tahay ugu wanaagsanaa ayaa hadda dhinaca qabyaalada guurka oo saaxiibaday aan macnaha aan ku qalaafsanay macnaha waxa weeye guurka awal waxa waaye waxa imaan jirtay in reehebel ma guursada isma guursano in la yiraahdo oo hatta hadii gabadha iyo wiilka is guursadaan israwadaan in dagaal uu ka dhici jiro meeshaas oo dadkii isku dagaali jireen oo macnaha ragga qaar ah hebel isku ma guuriyo hebel gabadheeda ma guurinayo marka qabyaaladii aad iyo aad ugu qiimo badneed guurka iyo mudminidiisa dadka qaar marka waxa la jiray hebel isma guursanay naga dhaafo gabadheena ma bugeeyo marka cilada uu lahaa guurkii hore waxa kamid ah baad leedahay in qabyaalad wax lagu xulan jiray aad iyo aad qabyaalada aad ugu jirta marka waxa la rabaa marka guurka qabyaalada hatta qabaliyada qaarkood ama nasab halos anusbeeyo ama dagaal dadkaas dhaxmaray labada qabiil hana nisbeeyo labada dhinacba in guurka qabiil loo nisbeeyo jiro oo lijar hebel isma geeyno hadii cidaas oo gabadhaas loo guuray cidooda gabadhooda guur mal in cidaas tan gabdhooda in loo xumeeyo gabawiilkaas oo iyaga qabiil ahaan ama waxay u yasaayaan inay baasha meesha ku sii daayaan inta aanan sheeqa siin guurkii hore birrif ayaanu ka qaadanay mawduucii muhiimka ahaa ayaana jeclahay inaan guda galno furiinka la xiriiray hayeeshee guurka maanta nooca uu yahay maxaad naga oran kartaa nabadan kufridiid dadka qaarna way amaanaan dadka qaarna waxay yiraahdaan dhaqankii hore Soomaaliyeed iyo wax fara badan baa laga tagay adoo soo koobaya guurka hadda maanta jira maxaad ku cabiri lahayd guurka maanta jiraay
fudayd baa la isku guursadaa baan ku cabiri karaa dabeedna dee fudayd baa loo kala tagaa adigana nabadoon bismillah horta guurka maanta jira inuu safiicnayn waxaad ku ogaanaysaa waxaa u daliila masalan maaragtay nin baa halkaan oo kala jooga gabar buu teleefon kula hadlahayaa ama Kismaayo joogta ama Hargeysa meel fog wadan fog joogta teleefonkaas uu ku shukaansanaya gabadhii soo dhoof buu leeyahay doona nooliba u tuurahaya ama maaragtay ayadaaba is soo nooliyaysa markii la isku yimaado gabadhii waxa dhacda inaysa ku qancin ninkii oo israada ninka rabtay maaha wiilkiina gabadhu yiraahdo gabadh uu salugo yiraahdo gabadhaani gabadha rabta maaha halkaas hadii la ku run yahay furunku ka yimaado waxa kale u daliila gabar yaro aan dal aqoon oo dad aqoon oo qabaa'ilaad kale aqoon oo dadka dhaqankiisa aqoon wiil bay isu shukaansan hayaan hadda sida meelaha gaaladu xukunto ka masaafo wax la yiraahdo lagu meerinaya waxaaba laga yaabaa asagoo gabadhii aan la gurigeyn in gabadhii la soo furo markii la isfahmi waado marka waxyaalo badan baa u daliila waxa u daliila gabadhii saas oo kale wiil bay la soo heshiinaysaa waxay leedahay aba wiilkaan keensaday ugu nikaa maanta hadda wiilku waa qalmo ma qaan qoleys hadduu u badato waxay leedahay waa reer hebel yuu ka yahay ma garanayo marka fudaydkaas maaragtay wuxuu dhalay in la isfuro gabadhiyo maaragtay ama todobadii ku jirta ama aan la gurigeyn ama maaragtay halda iyo labada markii laga dhalo ay rafaado sidaas uu keenay marka maaragtay fudaydku waa fuduja waxa la yiri waxaan laga fiirsan iyo caana aan fiiqsi loo dhamin waa mahmaah Soomaaliya feerahaagay wax yeelaan marka waa in laga fiirsado guurku reer baa la dhisahaya mustaqbal baa la rabaa hanti baa lagu xisaabtamaa dadka dabeecadda iyo gobolada oo kala dhaqan duwan baa lagu xisaabtamaa sidii hadda sabdow sheegayay yasin ma ahane Soomaalidu waxay ku mahmaadaan waxa taqaan guursa waxa taqaan ha ku dhaleen aqoonta dadka qaarba dhaqan buu leeyahay hadii la kooran yahay nin hadda maaragtay gabadhiisa faras iyo maaragtay konton halaad ka rabay iyo qori hadii la kooran bariga hore aakun ma jirana lixla gaab la yiraahdo ama lixla dheer oo qorihii markaa jira u qaaliya hadii nin beereedii ka guursado oo uu saqor iyo geel haysan halka isku dhacba imaanaya marka taas tiisal dawlad taasan kale wata nabadoon waxa soo dhan kala sanay ragaan waxay sheegayaan oo kala sanay macnaha horta waajibtay macnaha shati iyo geel iyo qori toona maahan xagga qabyaalada la iskiisa jira oo dadka marka taas waa meesha ugu baxay marka laakiin hadda waxa rabaa guurka hadda maxaafudey hadda nabadoonadu waxay yiraahdeen guurka hore wuu fiicnaa kan maanta way dhaleeleen dhaleeshaas ma la qabtaa bismillah waxaan ugu jawaabaa guurka horta in dadka iskood isku guursan xilliga maxamed siyaad bare soo bilaato marka la yiri dadku waa sameeyeen xeerka qoyska la sameeyay gabadha waa la hadlaysaa hadaad la hadashid oo ay heshiisaan aabaha loo taduudido meeshiisa aad ugu meerin jir kadib ka soo tag maxamed siyaad bare xilliyadii oo aan hogaamiye kooxeedyadii dadku waxay fahmeen diinta waxay ogaadeen waxyaabaha odayaashii hore ee qabyaaladii iyo qorigii iyo rati iyo geeli iyo inay baadil ahaayeen oo macnaha dadka gabdhihii la gadin jiray sida taas la fahmay shariicadan lagu fahmay maanta cid isweydiinay yaa guurstay yuu yahay inta hebel kan waa ma wajirto muslim al-muslim akhu muslim marka xalada guurka maanta uu fiican yahay hadda dhinac maanta saas uu fiican yahay dhinaca ogal qawaayilada iyo wixii isku raacdiisan jiray hadda waxa bedelay ninka murtad ba macalmaaniya ma mujaahid ba ninka aan gabdhaha waxay leeyihiin nima xabada ka soo wareen ma guursanayno marka qaabkii hore waxba iska bedela aad baad ma santa sheekh jaamac maxaa kaaga baxay in dheergarad wararkooda iyo maaragtay tusaalooyinka ay soo bandhigayeen bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah runtii waxay baxay odayaashii hore waxay ka sheekeeyeen dhaqanka Soomaalidu ay lahaan jirtay waxayna ka eegeen dhanka iijaabiyaadkiisii reerku inuusan dumi jirin reerku baaqi noqon jiray maadaama si adag oo maaragtay reerku ku dhismay oo laga fiirsaday oo la xulay walaalkii sabtiyoona dhanku ka eegaya waxa weeye xoogaa diiniyan cunsuriyada Soomaalidu ay isticmaasho oo mataqareer balma guursan iyo waxaas iyaduna diinta waxaan ognahay arin ku xun inay tahay marka iyagu dhankaas marka hore ma ujeedadoodu ma ahaynba waa cilad jirta cilad kale jirto aysan sheegin waxa weeye in gabadha sida anagu intaanu soo gaarnay badana abwaaba la carar jiray gabadha ma la weydiisto reer bal ma weydiisto inta loo tago oo sidaas kale hal xiraaliyaashaas waxaas la weydiiyay gabadha bal aqligeeda la baaro baa la carara hadii la rabo iyadoo diidan ba gool lagu ritaa oo la iskala ordi jiray oo ma taqaana deedna khasab baa lagu soo la dhigi jiray waa meersanay
marka dhinaca cunsuriyadda iyo reer bal isma guursano wax sharciga ilaahay ku xun weeye oo aad iyo aad u foolxun waxaa dhacday hadda haddaan mithaal ku soo qaado waddanka Mareykanka qisa la ii sheegay oo aad baan la tacajabay gabar baa waxay guursatay nin Jamaicana yani Jamaican buu isugu sheegay waana nin reer Soomaaliya qoladan beeraleyda dadkan beeraleyda weeye waxay og yahay inaysan rabin marka hadii tiraahdo yiraahdo jireer beeraleyana isagoo Soomaali markaas ayuu Jamaican sheegay Jamaican buu sheegtay gaala soo garan sidii baa lagu guursaday marka hooyadii iyo waalas bartay oo reerkii baa u yimid ninkii oo waxa la yiri naamaani waa lagu kor sheekaysanaya inuu Soomaali aqoon baa loo qabaa moogta maanday seeninku ku yahay waa fiican yahay ma sha Allah saaxiibaan waa isu bognay waa isku noolnahay waa ka xiriirku si fiican buu noolyahay maandow ilaahay soo islaamiyay tiraadi ummadda markaas waanu islaam baa waraanu nin muslimaan habi maani yo Jamaican galaba waa guursatay maxaa kan beeraleyga ah kula walaalka oo muslimka maxaa ku diiday arintaas marka waa arin sharciga aad iyo aad ugu foolxun cararkiina waa wax foolxun inay gabdho nimanta tagaan maaragtay ay gabar la sheekaystaan sharciga muwaafaqsana waxay ahayd in lagu doono waxaas in ku soo jirno dhan waxay ahayd wax foresterato wadada ka baxsan sharciga waxay ahayd in gabadha in la soo taskiyo maamooyinku hooyooyinku ay soo ogaadaan reer hebel gabar diin iyo akhlaaq waxa kaliya wax lagu dhisayaa waa diin iyo akhlaaq qofkaas of diinta ilaahay multazimku oo gol ma yahay inuu ku dhaqmo akhlaaqdiisu saatahay labada hadii uu qofku ku barmooso waa markaas la doonaya carar wax la yiraahdo shariicada meel kama soo galo wax la yiraahdo cunsuriyadna meel kama soo gasho qofka waxa weeye ida jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu hadii uu idin yimaado in diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad ku raalitiin uu guuriye إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض هدينا سدا فلن فتنة أي أرض إيمان سئي فساد كبير أبو النبي عليه الصلاة والسلام مركز هير بالبيار هير من اسمه جورسنو وجاهلية ومعركتي قبل الإسلام قاب كل ورق مشريوية إن عنصرية مذهب لفيريو أما معركتي لفيريو قبل لفيريو ووح شريعة أن لكل هين أو لربع دقن كأن لجورا لو باين جزاك الله خيرا waxaan imika u guda galaynaa mawduucii rasmiga ahaa ee furiinka la xiriiray maxaa u sabab ah furiinka oo la ogaaday in xilligan uu ku badan yahay Soomaalida dhexdeeda Sheekh Jaamac soo dhawow furiinka bal inoo qeex xagga sharciga marka laga fiiriyo furiin sidiisuba waa maxay sidee buu ku yimaadaa sharciyan ma wax lagu degdegaa bal qaabkiisa furiinku waxaan ogsoonahay mashruuc waayahay oo labada qof inay kala tagto waa mashruuc laakiin haddana waa garanaysaa waa markii laga fursan waayo oo reer islaam ah oo maalintii la dhisayay bulshada dhan ay ku faraxday oo intaaji mataqaana miro soo saarayay oo ijtimaaciyan faa'iido weyn lagu qabay oo maaragtay haday marti tahay iyo haday qaaraan tahay iyo haday qayb tahay iyo haday ilmo meesha ka soo baxay iyo reer islaam oo dhan oo dhisan inuu burburo lagu kala tago waxa weeye ijtimaaciyan waa xun tahay sharcan waa xun tahay diinta ilaahayna wax laga raaliyahay maaha laakiin in hadii xal waayo labada qof noloshooda isqaman weydo in uu wax ugu dambeeyaa oo furiin noqdo waxa weeye waa xal waxaan ognahay xilligii dawladda inta la yiri leesma furi karo waa tii rag baa dumarkoodii laayay kow kaga sii nafta ka qaaday soo mar iskaga reebo marka arintaas shariicadu xal bay u yeeshay in hadii nolosha ay suuroobi weydo labada qof la kala reebo laakiin sidiisa kale xadiiska oranaya أبغض الحلال إلى الله الطلاق وحديث ضعيف لكن هذا معنيه سداد في رسد مفوق ومعنى معقولة وي وشرقي لقى فرسوا يعني عيار لو كلبهده وريركي للدمية وأرن فول حنوي أبد ما سنتهاي نبدون كفر ديد محا السبب فرينك حلقا كوبادان الصومالي ذا دحديدا هداي تهي دل أما دبت waxa u sababa horta waxyaabo badan baa u sababa iyadoo badan tahay sababahaas badan yihiin mid baan diirada saaraya dabadana anigu hadda ma tagin laakiin dalka guriisa ka warqaba si wanaagsan waliba dibadda dad baanu ka wareysan doonaa oo qad ka soo galaya goordhow insha Allah guurka gudaha jooga wiilka iyo gabadhu sida hadda rag hore sheegeenba horta marka la isku kaasanayo way iska fuday ayadoo xaggii shariicada ayna ku xumayn in guurka la fududeeyo ay sharcigu qabo haddana anu fudaydka aan ka hadlayaa ma aha mid shariicada culays ku ah ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa labada qof oo isdoonaya rabaa inay nolosha wadaagaan inay horta in badan isbarbixiyaan isfaham qaataan inay isla noolaan karaan hubiyaan markay ka soo hartona ay isu fiiriyaan diiniyan oo qof waliba qofka kale diintiisa u eego labadaasuba horta meesha waa ka maqan yihiin
sida adeer buu sheegay bahal telefoon la yiraahdo marka la isticmaalo casriga soo baxay iyo internet dee waxa weeye kelmadahaas yar baa la isu turturaya hawada la isu marinaya dabadeedna waxa weeye markii la isguursado dhaqaalihii iyo noloshii iyo sida loo noolaan lahaa iyo qaabkaas waxa laga yaabaa in laga hadlinba horta waxaan gubaya dadka horta feerista iyaga horta laga noolaado moogta dabadeedna haddii reerkaas xasilo nasiib noqoto oo iska banagaado horta midda koowaad waxa la yimaada ragga waxa weeye iyadoo ragga guurka laga xanimin oo dhaqaale yaraan darteeda guursanaan sareecadu oo dhan haddana reerkiyo iska dayarna qaboon oo dhexda kaga jira bulshadiisa ayuu mid kale markiiba hiiga saaraya ilmaha koowaad markay gabadhu dhasho deedna markaas baf siinaya oo mid kale guurinaya sareecadina u diidi mayso isagoo aan xisaabtamin oo aan oran ma taqaanaa laba haday tani masaydo aan masaytir siin karin oo dajin karo dhaqaalihiisa iska koobayo reerkan uu ku filaa ayuu mid kale qorlaabaya oo sidoo kale u fududay markuu qorlaabo tiri waa boorisa waxay leedahay wariya maanaad leedahay deena yaro suuq iska soo heleen bay ahayd reerkiina waxa laga yaabaa inay caawino badan kale helin sababtoo reerkii gabadha soo koriyay markii hore hadaan xoolo la siin oo la dajin oo hadal macaan la siin oo maxaan ku yiraahdaa reerkaan ay uu arag reer qiimale inuu yahay hadda adiga gabadha hadhow isqabataan de qiimo badan ka heli maysa gacan badan ka heli maysa hadhow adiga gabadha banaanka isula baxaya dadweynna marka dajin kari weyday naaga tag badanaysa markaa halkaas lagu beenayo marka waxaad leedahay maseerkana waa qayb kamid ah furiinka waa taa horta qodobka ragga gaar ugu eedaynaya qodobkeygii koowaad waan diirda saarayo waxa weeye ragga horta inay daclabaadiyaan mooyaan joogsan kari maayaan ma joogsadaan moogtahay laakiin waxa wanaagsanaan lahayd inuu ninku markuu gabadhan haday masaydo maslixi karo dhaqaale ahaan inuu markaa guursado ama ayada sharciyan uga dhameeyo oo ka daadsiyo yaraadaan walaal heblaan guursanayay deega ogolo way marka horeba wax la wado laakiin iyadoo labada qodob midna la eegin guurka imanaya horta fiirisa isaga burburiya hadda reerna cayri reerna keen waa jug meeshaadi joog waxba ma tiyaata waa tan nasiibta nasaar way aad baad ma santahay hayeen badan guleed ma la qabtaa mise waxyaabo kale oo dheeraad ayaad nagu biirinaysaa oo sabab u ah kala tagga ama furiin bismillaah horta qaar waa la qabaa waxyaalo kalena waa ku biirinaya way badan yihiin waxyaalaha furiinka sababa qodobka koobaad dadku isguursanaya ayagoo da'yar oo aqligoodu uu saqaybsaman oo wiilkii ama 20 jira ama ka hooseeyo gabadhiina sidoo kale tahay ayay isguursanayaan isku dhucuna inta badan wiilka xaqiisu ka yimaada waxa Soomaalidu ku mahmahda 20 jir intuu geed ka boodu tala ka booda horta da'yaraantaas waa sababay u tahay midda kale dhaqaale yaridu waxay u tahay sababay u tahay wiilkii asagoo aan dhaqaale haysan oo meel ka shaqeyn oo laga yaabo guriga aabihiis hooyadiis inuu badar ka cuno oo soo wax kala haysan ayuu gabadhii guursanaya dhaqwaa la iska hor imaanaya markuu guursado ama dhow hadda xoolo noo kala go'ama ma haysta reerkiiba inuu sabool yahay iska suurtooda wiilku ka dhashay meeshan badarka ka cuna gabadhii dhar uma baat uma gadi karo bil gooniya ma siin karo qaaran kama bixin karo hooyadeed haday timaado wax gacan buu ku jira waalidkiis wax ma haysto wax la'aantaasina qodob bay ka tahdo wax la'aanta inta badan ayaa hadii la isku furaa nin baa waxa leeyahay wuxuu yiri war kaali gabar ila doon reer hebel gabar igala doon hayna keen markii dhex la sii socdo wuxuu yiri maxaad hadda lacag haysaa Sooria nala ka rabaa ma aragtay yarad baa nala ka rabaa maxaa haysaa wuxuu yiri waxba ma hayo gabadha in ilaahay dartiis in loo siiyaan rabna ilaahay dartiis naloo siiyo way Sooriyadii iyo ma aragtay wixii wuxuu yiri iimaankan iska qaba waxba ma hayo baniba iimaanka waa ka qaadin baniba iimaanka waa ka qaad gabadhii markii hore saasa lagu guursanaya hadhow ilma iimaan haya ilmihii daaway u baahanayaan gabadhii ma aragtay adiga gacantaada un bay sugaysaa aabaheeda iimaan haya wax ma siin kadib hooyadeed kadalika ayadii waxbay u baahan tahay waxba ma haysin waa isku dhacaysan marka waxa la'aantaasina waa qodob muhiim ah oo tiir dhaxaadka ah midda kale waxa jira Soomaalidu hadda waayahan dambe ayay ma aragtay xoogaa diinta ku soo baraarugtay xoogaa dhaqankeedu xagga diinta ma aragtay uma dhaweena xagga dhaqanka kale u dhawaa marka ragga inta badan waxaan isleedahay ma garanayaan xoogaa waxba ka dhiman ragga qaarkiis rag oo dhan yaan orane xaquuqda hadii ilaa ku run yahay dumarka ilmaha ma aragtay mustaqbalkooda ma ka fakaraan marka xaquuqda ma aragtay waxaan isleedahay raggu intiisa badan
ma tixgeliyo naagtu xaq bay leedahay haddii ilay ku ruyay culummadii baa joogto jaamac baa jooge inaad maaragtay u dabacsanaato oo u qaboobaato oo u soo adeegto oo maaragtay mar ilmay haysaa mar uul bay leedahay mar waa umul haddii ilay ku ruyahay aad u jajabnaato naagta ayaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa haddaad hantiila ahayn sidii walaalkay u sheegay inaad naagaha dambe haddii ilay ku ruyay ka gaabsato reerkii horeba adoo aan duruufihiisa xallin karin inaad hadda naag guursato aniga arintaas haddii ilay ku ruyahay ma qaba raguna uu ka dhigta afar baa la ii banay afarta hadda lagu baneeyo waa inaad haddii ilay ku xaquuqdoodii ka soo bixi kartaa aad baad maasantahay hay'adna badoone mala qabtaa guuleed tusaalooyinka uu soo bandhigay maxaad si ku biirinaysa bismillah horta aniga waxaas qaarna waa la qaba qaarna lama qabo guuleed waxa la qabin waqti guurka ma aha beeso biilkana waxa qof walba wuxuu awoodo biisha nina maanta $50 biilna nina 20 nina 10 nina 5 nina $1 ba awoodi karin wayna dhaqmayaan dadka macnaha waxa la isku dhaafay wax iimaanka iyo daacadnimada guurka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka inay tarasaarteen qaarkoodna hami oo lacageed ama ninka guurka dhaxdiisa lacag ay ka sameeysan ama naagta ka sameeyay ama ninka ka sameeysan waxyaabo badan oo waxa jira oo fariiq sabab ah marka ka soo bilaabno ogal waxay ahayd meherka xeer ah horta wiilka oo gabadha la siiyay inuu furo ka adkaa jirta maxamed siyaad baraa yimid wuxuu yiri ku shirin ka badan gabadh lagu meher karo meesha waxay ka saan qaaday inuu furiinka bato oo qofka uusan ka fikirinba oo yiraahdo gabadha waa iska deen la mid kalena waxa sabab ah macnaha guurka waa aan la fahmin ilaahay wuxuu leeyahay jacala baynakum mawadda wa rahma jaceelkii Soomaal marka waxay ku jecelahay kan waayo gabadha si sahlan marka lagu meheriyana waxa imaan mawaddada imaanaysa masruufkii biilkii عادي ninka waxa laga yaabaa inuu wax fiican oo cunto macaan oo cuno meesha isku hasta raxmadii waa naxariista waa gabadha waa lacay hilibkii iyo adduunyada ay ku sameeyeen jirka ma sameey karto markaas ninka wuxuu la soo boodaya gabadhan waa liigu dir ugu waa fiicneed naaga u yimid aan wax inuu dusha ka saaro ilaa gabadhiyaaba ah xanuunsan dabeecadahan isbedeshay marka taasna aqoon la'aanta iyo fikirka guurka aan la xijisanin oo micneeda aan la fahmin warta sabab kuwa taas aan u dhiga xamar waxa la yaab leh waxa la sameeyay hay'ada oo la yiraahdo guul doonka la sameeyay hay'ada waxa la sameeyay kuwa oo garoobada la sameeyay hay'ada furiinka qaabka isku furo hadii ninka qaabkaas ay ka weyso aysan la noolaa karin furiinka la dhiirgelinaya waxa kale lagu dhiirgeliyaa gabadha waxa la leeyahay adiga wax barasho lagu furaya marka gabadhii wax barasho la gelinaya siiba had waxa ka faa'iideysta Iiraan iyo Turkiga oo Shiica waxa leeyahay ninka adiga guursatayba diinba ma haysto diinta shiicada iyo wixii hadana waxa arkaysaa lacag la siinaa gabadha ninka iska soo furan gabadhii ninkii ma wala noolaa karto inkasta wax kasta waa u dhashay sida tafsiirka oo kale ayagana saas oo kale macnaha saameyn weyn uu ku leeyahay furiinka inuu bato oo dadka ay ku kala tagaan waxa tan waxa uu culeys badan ba in gabdhii nimankooda intay soo tagaan wiilal kale oo la shiiciyay loo geeyo lagu daro oo biil la siiyo masaajid goona loo sameeyo meesha isku tagaan wax barasho gooneedii meeshaas lagu tarbiyeeyo oo gabdhihii iyo dadka dhalinyarada ah ee aqoonta aad u lahayn ee isku wareeraan oo maalin kasta magaalo waxa ka saxamad aroos la wada meelaha oo isku furan waxa leedahay meesha maxaa lagu dhiibayo furiin loo taagan xaflad furiin iyo waxa kale sabab u noqday guri waxa la soo wada noolaanshaha dhalinyarada meesha ku wada noolaanaysa guurba loo baahno gurigan wax walba loo dhameeyay kooka la geeyay gabdha oo ka shaqeeya nadaafiyada la geeyay sariiro joodariyaal bis adiga qofka taas soo wada imaanaysa waxa wada noolaanshaha ninkii biilka laga leeyo biilba laga maro marka gabadha naagtaas muxuu ka haysanaa marka waan ku soo laabanayaa Sheekh Jaamac Cabdisalaam mawduucan runtii aad buu u ballaaran yahay maadaama uu yahay mid saameyn ku leh bulshada su'aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay marxaladda hadda aynu ku jirno waa xilli dadka qaarkiis ay ku faanaan furiinka waxaad arkaysaa rag ku faanaya in ka badan 10 gabdhood ay soo fureen xitaa haweenka ayaa laga helayaa kuwa sidaas oo kale ku faanaya furiinka marka ma la dhihi karaa waalidiinta laftigooda xilligan xaadirka ah ma baraarugsana oo tusaale ahaan nin soo furay 8 gabdhood ayaa waxa uu u tagayaa reer kadibna gabadhii 9aad ayaa lagu darayaa si uu u soo furo marka ma la dhihi karaa way habooneed in su'aalo la weydiiyo qofka ma aragtay gabdhaha badan soo furay sharciyan diinta islaamka marka la fiiriyo ka waran arintaas waa badihi qofkaas guur uma jeeday wuxuu iska jeedaa mataqaana biyadaas buu iska rabaa marka wax sharcan iyo aqlan ba aad iyo aad u falxun weeye
wixii loo dhahayeyna marka horeba dadku taskiyaha isku guursadeen oo gabadha loo baahan yahay taskadeeda hala raadiyo oo wiilka taskadiisa hala raadiyo diin iyo akhlaaq ma leeyahay qof hadhow qofkii ku cayaarayo oo wuxuu raba iska samaynayo miyaa oo maaragtay habeenimo inuu la dhaxal raba mise waa iyada naftigeeda mogta marka musiibada waxaa weeye inaan la isweydiinayn basaad u sheegtay war ninkan diin iyo akhlaaq ma leeyahay gabar baarta haye sooni reer hebel ma tiida waa ku gurinay reer hebel bayayr loo fiiriyo diin iyo akhlaaq loo fiiriyo la guurka marka aad iyo aad bay u farxun tahay in ala duul qofkii uu mataqaanaa يعني waxaan sheegay 25 jir oo wiilan 30 kii gaarin oo dhahay 40 baan furay 40 kaasi inuu ciyaar buu socdaayo ma socdo guuru ma socdo waad iska garanaysaa ka waran hadii 20 ilmo dhashay oo 20 ka canug bameel uu maantay uu ku baaba'san yahay oo abiyo hooyo midna uusan hayn waa musiibo marka arrin sharciga iyo aqliga midna raad kule maaha sidiisana furiinka waxyaalaha keena waxa kamida sidoo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra qofka mu'minka ah ninka mu'minka ah gabar mu'minada uma caroodo sidiisa baan u caroodo oo caro yaani waa caroonaya caro uu ka quusto yiraahdo midaani kuma anfacayso maba iman karto kariha minha khuluqan haduu dhinac ku naco dhinac kale uu kaga raal noqonaya in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra marka hadii ay adiga ku rooneen ilmaha u roontahay hadii ilmaha u rooneen qaraabada iyo dariska iyo u roontahay hadii ay sacnada ka xuntahay waxbarashada laga yaabo inay ku roontahay hadii waxbarashada ku liidato sacnada iyo ilmaha si wanaagsan inay ilmaha u tarbiyin karto u korin karto qofku ever dhinac walba inuu ka noqdo ma suuragal aha hadii aysan qurux badnayn oo sida kale ku soo jiidan waxa laga yaabaa inay dhaqankeedu ku soo jiito marka dhan walba laga ma eege hal meel buu ka eegayaa oo diiradiisa qabanaysa midaan wallahi ma hayn karo waa qof kulul هذه كل شيء انت ايجابيات خير بلاده واقف فالحن هذه فالحن تا انت خير باك هوسيس وحال في مركه قفك ان دول بلغ دراسيه ومركاس جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا من حنينا أو ركعنا من حنينا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي